Assalaamu calaykum dhammaantiin. Wiilkan yar ayaa maanta sheekadeennu ay ku sugan tahay. Wiilkan yari waxa uu si khaldan u galay kaynta, wuxuuna la saaxiibay oo saaxiibo uu la noqday daanyeer. Wiilkan yar oo si kedis ah kaynta u aaday, kadibna gudaha kaynta sii galay, ayaa waxa uu la saaxiibay ama saaxiib dhow uu la noqday daanyeer. Daanyeerkaasoo noociisu yahay daanyeerka la yiraahdo gorilla ama ka aadka u xoogga weyn leh. Wiilkan yari isma lahayn kaynta waad ku lumi, laakiin si kedis ah ayuu kayntii ugu lumay wiilkan yari. Daanyeerka uu la saaxiibay waa daanyeerka aadka u xoogga weyn leh, wuxuuna kula saaxiibayaa si kedis ah. Wiilka yar waa mid caqli badan. Marka uu la kulmo daanyeerkan, waxa uu daanyeerka u soo dhoweyn doonaa si la yaab leh. Hadda wiilkii yaraa waxa uu ka hor yimid ama uu soo hor istaagay waa daanyeerkii weynaa. Mar walba daanyeerka noocan aadka u xoogga weyn leh ma aha mid akhlaaq xun oo carruurta laaya. Wiilkii yaraa waxa uu u soo gooyay daanyeerkii waa muus. Muuskaas ayuu doonayaa in uu daanyeerka kula saaxiibo. Waayo hooyadii ayaa uga sheekaysay in daanyeerku jecel yahay muuska. Kadib daanyeerkii waaba la saaxiibay wiilkii yaraa oo waxa uu ka helay sida uu muuska u soo siiyay. Wiilkii yaraa mar kale ayuu muus kale u doonay daanyeerkii. Hadda daanyeerkii waxa uu wiilkii yaraa ka dhigtay mid uu soo dhoweysto oo uu la saaxiibo. Daanyeerka oo la yaaban wiilka yar ayaa waxa uu arkayaa in wiilka yar uu daacad yahay. Kadibna daanyeerkii waa uu ku qoslayaa, wuxuuna jeclaanayaa wiilkii yaraa oo waxa uu u soo dhoweysanayaa sida ilmihiisii yaraa. Saaxiibtinimada wiilka yar iyo daanyeerkani halkan ayay ka bilaabantay, waxayna noqdeen laba aad isugu dhow oo saaxiib aad u dhow ah. Qisada wiilkan yar iyo daanyeerkan iyo kayntan aadka u quruxda badan leh ayaa muuqaalkeena ku qaadaa dhigi doona insha Allah. Daanyeerku waxa ay saaxiib noqdeen wiilkii yaraa. Wiilkii yaraana waxa uu si fiican ula saaxiibay waa daanyeerkii. Daanyeerku wax walba waa uu ka celiyaa ama xayawaan walba waa uu ilaashadaa wiilka yar. Wiilka yar iyo daanyeerku waxay ku ciyaaraan kaynta iyagoo faraxsan. Maalin walba waxay soo qaraabtaan ama ay ku nool yihiin waa kaynta oo ay labadooda oo keliya ay ku saaxiibeen.